kulanti wacan oo wanaagsan daawadeyshaad ku qiimo halkaad naga daawanaysaan waa baartiini baahinta wararka fadlan aad nagu cusubtahay saad nooga baratay channelka subscribe dheh sidoo kale videoga like saar oo like wax taraysa oo min shar xasad alxaasid la yuflix xaasidnimada iska dhaaf walaal hadaan xaasid ahayn fadlan subscribe saar channelka sidoo kale kambareelka furo si aad la socoto videoda sidoo kale videoga like gare waayo like to videoga wax taraysa muuqaaladooda ogeydeen oo nin kufsaday gabadh reer Burcaamo hooyo haysatay 3 carruur ah oo reer Burca ahayd kadib markii hooyada dilay intuu kufsaday jirdil loo geystay gaagasadana sii dilay ayaa waxa farxad ah in lagu xukumay ninkii dilta hoogasha ah amaba lagu xukumay ninkaas dilta hoogasha ah isagoo qirtay inuu dilay qof muslim ah oo gabadh ah waliba kufsadayna isagoo qirtay dambigaas ayaa waxa uu iskeenay saldhiga kadibna waxa dilta hoogasha lagu xukumay isla ninkii muuqaalkan adkaga badnaan cidii ku xigtay dilta hoogasha eelkeedii dadka Soomaaliland ee dadka muslimiinta oo xaleen sameeyaan xalanasi waxaan taageersanahay si wasiirka dakhliga oo xeerka baarlamaanka aan ku soo saaray xeerkii mar haday kufsitay waa inaan wiigba ka dambeyn waa in loo toogtaa hadii silay toogasha laga إما تبغى يعني توقشوا شيء كمل بنيا هكذا صور حكومة وين أنا within this week وين أنا كذا ما أنت دبل سوق أنت خاصة ميران أو كل سياسي وحكم كيسي وهم دوننا ساعات وسيسو وسيك الداخل كل واقعي محكمة دبر بوليس كبرنا حولنا نيكا هلا صوت هاي توقشوا هلا يعني ربع سوق كتمين دل ويا هو تكسب وحلا على وحي كبسي سمايا خاجة إن قف دمر قفصة وحولين وادل دين كنتاسين xildhibaanka haddii aan hadalkiisa idiin faahfaahiyo daawadayaal waxa uu sheegay in wasiirka dakhliga waa wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin inuu soo bandhigay xeerka baarlamaanka in qofkii kufsada gabadh haween ah dil toogasho ah lagu xukumayo isla magaaladaasi Hargeysa ama magaalada uu ka dhaco kufsigaasi sida uu hadalka u dhigay weeyaan waa xildhibaankii isagoo loo soo bandhigay xeer kamid ah xeerarka uu ogolaaday wasiirka dakhliga haddaba daawadayaal xagana waxaan ku tusi doonaa sheekh caan ah oo isna ku xukumay dil toogasho ah ninkan kufsaday gabadha yar ee hooyada ah ee 3 carruur haysatay ee reer Burco waa hooyo baade fadlan daawadayaal nala bogta muuqaalkan kale gabadha walaasheena aynu dhamaanteen wada maqalay ee dilka iyo la isugu daray xadgudubka cirdigeed iyo sharafteedina meel lagaga dhacay qudheed iyo ruuxdeedina la jaray oo arinaadii aad u foolxid waan arin nagu cusub waynu maqli jirnay bil baxda bil tagtay geel jira meel gabadh cidlaa ka helay meel cidlaa gabadh ka helay waa la maqli jiray laakiin wali maynaan arag gabadh la kufsado oo la dilaa wadankeena waa kow waa wax nagu cusub koonfurteenu ku maqli jirnay gobolada wadanka Soomaaliya iyo koonfurtaas waxaas ka dhacaan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxaan nabad iyo caan ahaynba waa la isqaadsiyaa ama waa la kala qaadaa waa xanuun inoo soo gudbay laakiin waa virus inagu cusub haddii halkaa lagu joojiyo oo ka tusaale lagu bixiyo maanta maadaama uu naf gooyay qiraalna uu yahay oo isagu qirtay inuu dilay marag madoonna ay tahay qiraalku waa xujada ugu cad shariicada dhexdeeda qofku wuxuu naftiisa ku qiro waa xujada ugu bayaansan ama ugu cad wax kale looma doonayo ninka waa in loo qisaasaa ruuxa dumarka muslimadda uu ku xadgudbay qisaastaasi waxay keeni doontaa in rag oo kasta oo hunguri ku jira iyo damac iyo xanuun uu qalbiga kaga jiray inuu dib u joogsado inaga ku kala badbaadi doona nabadeena ku adkaan doonta iyo amnigeena dawladnimadeena ku xoogeysan doonta dadnimadeena ku dhismi doonta isku duubnideena iyo wada jirkeena ku noolaan doona waa xaqiiq weey ilaahay baa inoogu naxariisan doona subxaanahu wa ta'ala maxaa yeelay aafo iyo xanuun ayaynu ka hortagnaynu ka dagaalanay taasi waa taa walaalayaal waana baaqaadi aad u muhiim ah waa inaan la fudeedsanin maxaakimta iyo dadka walaalaheena garsoorka inoo fadhiya iyo garsoorayaashuna kiiska marka la hor keeno waa inaan ka warwareegin ee shariicadu waxay ku xukuntay ay ka maraan si ilaahay inay u raali geliyaan bulshadoodana khayr iyo wanaag ay furo ugu noqdaan ama muftaax ay ugu noqdaan haddii kale waxay noqon doontaa wada halaq mareen oo nin waliba waa isku dayi doonaa xanuunka noocaas iyo walaalayaal ragana waxaan leeyahay waragow ilaahina ka cabsada subxaanahu wa ta'ala dadnimadiina iyo damiirkiina iyo marka sharaftiina iyo karaamadiina ilaashada dumarku waa hooyooyinkiin waa hablihiinni waa walaaladiin
waa kuwii idin dhaxay iyo dumaradiinii afarta dhinac buu idinkaga xeersayin mar way ku dhashay mar way kula dhalatay marna adaa dhalay marna way ku dhaxday karaama daraalkii u dambaysay weeye inaad ku soo hoos noqoto furaashkii iyo gogashaadii gurigaaga